السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء عفيفة.com ولالك قفكي ولا شيء أما ولالك يداوني فيديو جن ما شاء الله تبارك الله. إن الله يعزكم وحرب ما أنت إني لفة إيديستو أما إني لا وذاقو سبينش سوب لقسمي سبينش كباشا أختر كأدر كيسين أفصمال وحلا قولا مقرنايو هدي اللي فايدين لها وفعنا لهايد ما شاء الله تبارك الله. هراني قاعد درت أفصمالي يجينونا مدفي عن أهين وحرب ما أنت إن شاء الله تعالى إن كل وداعو أنت عن سوب كنسانو كرني كوش يجين أما كل وداعين محا كوشر سبينش كم حنشعل عمر البين نسوق بيفرين حاجة عافيماتكم محا كوشر شيء قاعد عنيسد إسكا كرسون معها iska cunuun maaha laakiin waxa ka fiican aad ogaatid waxa ku jira khayrka ay ku jira ilaaha raxmaanka yahay duxda uu galiyay inaad ka faa'iideysid jirkaaga ugu raaxaysid ma sha Allah tabarakallah. waxa ku jira runtii spinachka faa'iido aan la koobi karin. faa'iidada waxa kamid ah maadooyinka loo yaqaano carotenoidka oo runtii ku jira karoodka bocorka jaalaha ama huruuda ah broccoliga way badan yihiin khudradaha ku jirta runtii kaas oo runtii ku caawiya jirku inuu sameeyo vitamin A ama vitamin A da Soomaalidu taqaano kaas runtiina vitamin kaas oo runtii u fiican aragga iyo maxaan ku dhada maqaarka iyo kobcinta ilmaha markuu uurka ku jiro ama hooyadu rabto inay uur qaado kale ma sha Allah tabarakallah. waxa kale oo runtii ku jira waxa kale ma sha Allah ku jira calcium iron ayaa iyaguna qani ay ku tahay ma sha Allah tabarakallah moognaanin khaasatan waxa ku jirta maadooyinkani ku jiraay waxay aad iyo aad uga hortagaan in ayna unugyadaadu dhimanin unugyada khaasatan kuwa kansalku ka dhasho maadaama uu kansalku yahay unugyo si khaldan u barcamay ama dhintay ay ka imaadaan ama si khaldan isku copy gareeyay aw cancel ku imaado ay waxay ka hortagaysaa maadadan ku jirta spinachka in ay unugyadaadu ma sha Allah unugyada cells waxa loo yaqaana ay marka ay hagaagaan oo ma sha Allah tabarakallah ayna dhibaatoonin waxay kale oo jirka ka nadiifiyaan wax kasta oo sun ah oo jirkaaga la soo gudboonaan karta khaasatan free radicals waxa loo yaqaano oo wax dhiiga dhex wareega oo qashin iyo wasakh ah ما شاء الله. waxa kale oo ku jira vitamin C oo taqaanaan hawlgalka uu jirka ka leeyahay immune systemka inuu caawiyo bogsiinta nabarada ma sha Allah tabarakallah dhaqaaleynta ama ilaalinta unugyada iyo khaasatan walibana waxa ku sii jira oo kale vitamin K ga kala yiraahdo calcium karano soo sheegay waa K gaas oo runtii ka qayb qaata dhiigaagu inuu saxmo ama coagulationka dhiiga waxa la yiraahdo inuu dhiiga xinjiro noqon inuu mid dareeray noqon inuu mid wasakhdu fadhiista aw noqonin ma sha Allah tabarakallah waxaas oo dhan bay qani ku tahay oo ilaaha raxmaankii ku manaystay sida li ajligeed ay ku fiican tahay in aad spinachka si walba u cuntid aad maxaan ku dhaday salad ka samaysatid ama sometimes cunto kale ku karsatid ama soup ka samaysatid maanta waxaan kula faa'iideysanayaa ma sha Allah tabarakallah kula share gareynaya ama kula wadaagaya walaalkayga muslimka ah rag iyo dumarba waxa weeyaan soup soomanahay afurkii ku furan doona insha Allah taala laakiin waxaan ka digayaa spinachku wuxuu ku jira khudradaha aan dadka qaar kood qaadan karin khaasatan dadka isticmaala dawooyinka ka saara bararka dhiiga dadka kaliyaha la iyo dadka maxaan ku dhaday cudurro kale way jiraan dhakhtarkaaga inaad weydiisaa wacan iyo khaasatan caruurta yar yar ee 1 year ka yar lama siin karo sababtu waxay tahay waxa ku jira nitrates waxa la yiraahdo oo kamid ah iyaguna maadooyinka milixda dabiiciga ah dhaliya ahba kamid iyaguna sali ajligeed ayaa dadka qaar kood loogu diiday ilmaha yar jirkiisa iskama saari kara milixda faraha badan leh qofkan kaliyuhu daran yihiin iyo qofka cudurro gooniye qaba iyagana uma fiicna maadaama ay maxaan ku milix ku jirtana qofka jirkiisa biyaha laga saarayo kale ama bararka laga saarayo kale bararkaasi biyaha runtii milixda iyo sonkortiiba ka yimaadaan marka iyaguna ku sii badanayaan lama ogola ama maxaan ku dawada bay khalkhal galiyaan marka insha Allah intaas ha kugu filnaata cilmi ku duugan spinachka imikana ma sha Allah tabarakallah waxaan kula wadaagayaa waxaan ku darayo waxa kamid ah laba midho basala ayaa kamid ah insha Allah waxa kamid ah natural yogurt waxa baldiga dhan kuma dareeyo laakiin waxaan qayb kamid ah ku darsanayaa dhowr malqaacdood waxa kamid ah 4 midho ukuna xabad basbaas akhtara iyo in yaro kamsar ah iyo waliba waxaan ku dalacan doonaa insha Allah waxaan ku dalacan doonaa insha Allah
saliida canola oil laba qaado kamid ah ama laba malqaacadood hadhow toona dusha waxaan kaga darsan doonaa in yaro olive oil markaan dabka ka dhigo ukunta iyada kuma dhex karin doono insha Allah gooni baan u karkarinayaa markay bislaato ayaa insha Allah lagu sharaxayaa ama lagu qurxinayaa ama hadhow tal dhadhan kale loogu sameeyaa waxa kaliya taan dalacan doonaa waa basashan markaan dalacan waan isku ridqi ka bacdina spinachkan ku dari ka bacdina kamsartan ku dari ka bacdi wixii xawaashin rabaan ku dari filfil yar baan ku darayaa xabada qajiga ana waxaan ugu darayaa aad ma kullatani inay xarakad yar in yar xarakad yar dhadhan u yeeshay idgoon ay u yeeshay insha Allah waxaan ku darayaana 3 midhood toon ah insha Allah toonta niga ilo biraale hada 3 midhood toona in yar filfila in yar milix meel dheera ma sha Allah tabarakallah waxa waxaad rabtid xawaashi kale aday ku taala ku darso waxa soo nafaqo abad ka helaysa dabka aad ha ugu karin oo ha ugu dilin only 10 minutes ba ku filan ay karkarto insha Allah taala waxaan ku dari doonaa markay intaas ku bislaato waxaan ku dari doonaa caanahani oo sida double creamka kala ah loogu talagalay cuntada in lagu daro lagu kariyo ma sha Allah tabarakallah mognaan ka faa'iideysa biid rahmaan jazakallahu khayran daawasho wacan insha Allah ما شاء الله وتا بسشيان يرد العيك بعدنا الرضقي waxaan ku dhex darayaa insha Allah imka spinach kan ku darsanayaa insha Allah spinach kan ku daray waxa weeyaan 1 kilo oo frozen haday frozen tahay hadii kala baad kala dooranaya insha Allah kadib waxaan ku dari doonaa caanihii ka bacdi waxaan ku dari doonaa yogurtkii ka bacdi qajigii iyo kamsartii iyo toontii ka bacdi 10 minutes bay isku karaysaa insha Allah ma sha Allah wata spinachkii karaysaa waxa cadan ku dhex daray waxa weeyaan waa toontii imika waxaan ku darayaa insha Allah caanihii markii aan tusay iyo waxaan ku dari doonaa xoogaa biyo ah insha Allah oo yara qooya oo jileec ka dhigo suubo kala ka dhiga insha Allah waxaan isku karinayaa marka waxaan ku dari doonaa yogurtkii waan hadhow toolo ku dari doonaa laakiin waxaan isku karinayaa 10 minutes intan iyo maxaan ku dhada qajigiina waan ku darayaa iyo kamsartii waxaan ku darayaa iyo biyo iyo wixii xawaash filfil iyo waxaan ku darsanayaa insha Allah iyo yaro sactara in idinku waxa doonaysan ku darsada biidna rahmaan insha Allah hadhow baan ku darayaa yogurtka insha Allah ما شاء الله تبارك الله يمكن waxaan ku daray qajigii iyo kamsartii iyo 3 malqaacadood oo natural yogurtkiya biidna rahmaan 5 minutes baan isku karinayaa ka bacdina waxaan ku dhex darayaa ukuntii marka la waan tusi doonaa insha Allah sida ukuntana loogu darayo iyo in yar yogurt extra insha Allah ما شاء الله خلاص هو dhamaaday suubkii waxa hadhay oo insha Allah taala inaan ku shubo weelashiisii ukuntiina dusha kaga daray insha Allah ukunta waan kala jeexay waan dhex dhigayaa biidna ما شاء الله تبارك الله إلهي هينا وضع بركيو أنيقا كويدي كان الله إن شاء الله وكا سوبكي دماضي بيتكي نصاصا نقول حردي إن شاء الله وكا سي ما شاء الله هل كان وحا يقول شرا يوغر كي قيب كميد قفكي رو مركا أيرو يوغر كوسي دحدر سنكرا هديك لسانا لقوعني كرا ما شاء الله تبارك الله إلهي دين بركيو وكا ما شاء الله تبارك الله أنا صنعوني دونا إن يرو يوغردا أيان لكا هوس قليي ما شاء الله تبارك الله وحن دح دقينا إن يرو جيت كدا بارسليغا إن أما بقدونسكا ونوع وحلقو دوش لغا سارة ما شاء الله تبارك الله خير بدماني رجيني جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إن شاء الله إن إلهي وحن كبرينا عافمات كدين نسيو إن أنا كوكو كبراء بمعد إلهي ننقدقين إن شاء الله إن كوا محان كودا داي حمدية معاد ربي إلهي naga dhigo caafimaadkeeda Allah na siiyo wax la wixii xumaan ay leedahay Allah naga ilaaliyo qofkii allergy kula insha Allah ha iska daayo kii kalena ka faa'iideysto khayr badan waan rajeynayaa waa inay next video hadayna noolaana insha Allah rahmaan in Ramadan mubaarak mar labaad iyo mar saddexaad mar walba insha Allah ka faa'iideysta khayraadka insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh